jacaylku waa waxa ugu quruxda badan ee la haysto, waxa ugu adag ee la kasbado, iyo waxa ugu xanuunka badan ee la waayo. xushmad la'aan jacaylku waa lumaa, daryeel la'aan jacaylku waa caajis, daacad la'aan jacaylku waa farxad ma leh, aaminaad la'aan jacaylku waa midaan degnayn. goortii aad tiraahdo waan ku jeclahay, waxaad balan ku samaynaysaa qof kale qalbigiisa. waa inaad ku muujisaa ficil si aad u caddayso. jacaylku ma ahan qiiro kaliya, jacaylku waa ficil. jacaylku ma ahan dareen kaliya, jacaylku waa daryeel. qofka sida dhabta ah kuu jecel wuxuu kaa hor istaagaa inaad dembi samayso. qofka aan sida rasmiga ah aan kuu jecleenna wuxuu kugu dhiirigeliyaa xumaan iyo inaad dembi samayso. dad badan oo aragtida wejiga wax ku jeclaada gadaal bay ka qoomamayaan, sababtoo ah jacaylku kama dhasho quruxda wejiga, balse wuxuu ka dhashaa quruxda qalbiga. inta aadan qofka jeclaan, marka hore fiiri inuu naftiisa jecel yahay. haddii uusan naftiisa jeclayn, adigana jacayl kuma siin karo. goortii uu qof ku jecel yahay, ma ahan had iyo jeer inay afka ka sheegaan, waxaad markastaa ka garan kartaa habka ay kula dhaqmaan. haddii uu qof isjecleedeen kaa tago, ha murugoon ama tagin, ha isgubin, cuntada ha ka soomin, heeso badan ha isu maaweynin. fiiri naftaada inaad nooshahay ood neefsanayso, horay u wada noloshaada. u sheeg qalbigaaga in qof kaa tegay ee aysan ruuxdaadu kaa tegin. ha u bedelin midabkaaga iyo naftaada si ay dadku kuu jeclaadaan. ahow qofka aad tahay, dadka saxda ah ayaa ku jeclaanaya. dadka sida dhabta ah isu jecel si sahlan kuma kala haraan. haddii ay jirto 100 sababood oo ay ku kala tegi karaan, waxay helaan hal sabab oo ay ku wada joogi karaan. haweenku ma ahan kuwa dhib badan, waxay u badan yihiin kuwa jecel inaad jeceshahay. inay ogaadaan inaad jeceshahay. marnaba noloshaada inta aad nooshahay, cidnaha ka baryin jacaylkiisa. qofka sida dhabta ah kuu jecel waa inuu jacaylkiisa kuugu siiyaa gacmo furan. ogow qof haddii ay su'aalo ku weydiiso, waxa ay ka dhigan tahay inay ku danayso. haddii ay ku danaysana, waxay ka dhigan tahay inay ku jeceshahay. ninku waxa uu jeclaadaa gabadha uu ixtiraamo aadna u qadariyo, laakiin gabdhuhu ma ixtiraamaan mana qadariyaan qofka aanay jeclayn. laga yaabee middan inaad iga fikir duwan tihiin. dhibaatada jacaylka waxaa sabab u ah ninka oo doonaya inuu noqdo qofka ugu horeeya ee gala qalbiga gabadha, iyo gabadhu oo doonayso inay noqoto qofka ugu dambeeya ee gala qalbiga ninka. gabadhu haddii ay jacaylkeedii ama midkii ay si dhaba qof u jeclaatay ay ku fashilanto, nolosheeda inta hartay waxa ay ku noolaataa xusuusta jacaylkaas. laakiin ninku waxa uu ku fikiraa abuurista jacayl cusub. jacaylku waxa uu bogsiiyaa nabaro badan iyo xanuuno, laakiin ha u qaadan inuu dawo yahay, balse isaga ayaaba ah cudur wax walba ka weyn oo ku ilowsiinaya xanuunada kale. ogow qofka wax jecelow, jacaylku ma ahan waali, laakiin waali badan ayaa jacaylka dhexdiisa ku jirta. weligaa intaad nooshahay ha siin wadnahaaga qofaan aqoon sida wax loo jeclaado. ha jeclaan qofaan ilaahay subxaanahu wa tacaala jeclayn. haddii ay ka fogaan karaan oo aysan jeclayn oo aysan qaadanayn amarada rabbigooda, ogow adigana waa ay kaa fogaan karaan. ha ku khasaarin waqtigaaga qofaan rabin inuu waqtigiisa kula qaybsado. ma dhimanaysid haddii aad weydo qofa aad jeceshahay, laakiin waxaad dhimatay markii aad weydo sharaftaada. ha ka shalaayin inaad qof jeclaatay, qofkaasna oo meel cidlo ah kaaga tegay. ilaan qofkaas wuxuu ku siiyay jaanis aad qof ku qalma oo wanaagsan ku raadsato. ugu dambayn, boqolaal waji oo qurux badan waxaa ka fiican oo ka wanaagsan hal qalbi oo daacad ah.